سلامتها وحاول ديالك وطبيعي كترسل حيدن كحاكة وسمارات مضرب العوينة fursad weyn inoo ah oo aan ku hadlaya magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed baan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo ciidamada qalabka sida meel kasta uga sugan yihiin dalka qaasatan ciidamada fronta jooga oo dagaalka ku jira cadawga hor taagan har iyo habeenba munaasabada tan loo suurtageliyay in sida quruxda badan maanta ay noogu hirgasho
ciidamadaas ayaanu leeyahay hambalyo hambalyadaas oo si lamid ah u gudbinaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyadan waa sanad guuradii aasaaskii ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 1960kii maanta aan xusayno 17 sanad guuradeedii ciidamada qalabka sida meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan leenahay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee dalka u hayseen ka sokow waxaa la xasuustaa 75tii abaartii dabadheer gurbadkii baahada lahaa ee ka geysateen dalka idigoo ku badbaadinaya nafta ummadda Soomaaliyeed maantana ayna hayso abaar la mid ah laydinka sugayo inaad wadooyinka furtaan cadowga la dagaalantaan si aad u badbaadisaan nafta dadka jilicsan ee Soomaaliyeed dumar iyo caruur iyo waayeelba leh markii aan daryeelkii iyo agabkii ciidanka aan siino oo disciplinkii loo baahnaa ay keenaan waxay ku khasban yihiin sidii aan ku naqaanay ciidanka Soomaaliyeed oo geesiyaasha ah inay dagaalka galaan inay ka adkaadaan shabaab oo ay ka xoreeyaan dalkan ay ku celiyaan meesha ay ka yimaadeen waxa kale oo muhiim ah abaabul sidaad ogtihiin ciidanku kaligiis maaha wax dhimanaya waxaa la rabaa dawladda ay koow ka tahay iyo shacabka Soomaaliyeed in ciidanku uu garab taagan yahay oo aan u hayseeno oo aan u gabyeenno oo aan caanaha iyo biyaha iyo raashinka aan ka daba wadno ciidan aan lahayn shacab ciidankaasi ma guuleysan karo ciidanku wuxuu ku guuleysan karaa markuu uu og yahay inuu haysto taageerada shacabkiisa iyo dawladdiisa annagu haddaan qaybteen la imaano marka oo dhankii dawladnimada ah oo dhammaystiraysa waxa lagu wuxuu ciidanku u baahan yahay shacabkana ay garab istaagaan waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno hadduu Ilaahay yiraahdo